His problem is that he doesn't understand that the Iranian nation is a wise nation, a strong nation, a nation with resolve. The more pressure he applies, the stronger these nations will become. These attacks he launches are born of fear, born of desperation. Someone who is truly strong doesn't flee in the middle of protests. It's clear he has come up short. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم داوديال صاحبيال لينك هذا أركيسين وجيسي علي للرجاني إلى أن عريشنا كورابيه شهيدي مانت إيران أو دربا أو أرجودي إسلام كان أو أرجودي ميت كم إذا حضنه أو في فرعونها إسرائيل لأنك أمريكا يسيدو كله حجرينتي أو سرسي يوقف جلانت وزيركي هراء الدفاع إسلام كان هادت كجال كدجال كان حد جعنت كهيا أيا لوجو أرجودي على الرجاني دلكيسي warbixin ayaynu idinka haynaa daawadayaal saaxiibayaal iyo aljaziira oo baahisay in ay Iiraan markeedii ugu horeysay iyaduna ay gudaha ay markaasi Israa'iil ka fulisay operation si gaar ah maaha mid gantaala Netanyahu iyo Rizarihi iyo rag badan baa ku maqan oo ku dhintay laakiin oo ilaa hadda la qarinaya laakiin Iiraan khaarijinta ayay bilowday ama ikhtiyaalka waxa la dhaho ayay bilowday gudaha Israa'iil wasiirkaas oo ku dhintay daawadayaal saaxiibayaal ayaanu warbixin idinka haynaa على الرجال دمشقيس الله نحرسنا كورابيو طبعا هو شهيد نمو دورتي دمشقيس يعني سيدا ايسن نظام دولة نمو اسلامي ايران ايسن وحوين ugu dhimeen ayaanu idiin ku bidonaa sida ay uga taxadareen mas'uuliyiintooda dhan hadii la laayo inta aan aqaano inay soo xiraada ku reemayno halkan aan idinku soo gudbinayna daawadayaal saaxiibayaal mawduuca waxa ku daawo doontaan geerida على الرجال يعني sida ay uga taxadareen dhammaan hogaamiyaashooda haday dhintaan lakabyada nidaamka Iiraan uu ku dhisan yahay oo ilaa 7 lakab ah ayaanu halkan idinku soo gudbinaynaa taasoo madaxda inta aan aqaano dhaxdii la laayo mid walba wuxuu leeyahay 10 mas'uuliyiin iyo 12 mas'uuliyiin iyo 200 mas'uuliyiin oo ka hoos shaqeeya iyo malaayiin kale inta aan garanayno bulshadan waa 93 milyan baa laga hadlayaa madaxdoodu sida kalsoonida leh ee banaanada isaga wareegayaan aysan u dhuumanayn iyo kalsoonida ku jirta يعني sababta ay isku qari waayeen sida yuhuud oo kale ama madaxdan kale oo reer galbeedka dhulka hoostiisa ku dhuumanaya maxay tahay godad la'aan ma haysee godadka gantaalada aragteen qarinaya ayay leeyihiin su'aashaas insha Allah jawaabteeda halkan idinka soo gudbinaa saaxiibayaal daawadayaal al rijaani kumu aha isagana waa idin soo gudbin doonaa nidaamkii la kabiyadiisa waa idin soo gudbin doonaa dilka khaarijinta ee loo geystay wasiirka yuhuudda ee loogu arguday al rijaani isagana waa idin soo gudbin doonaa oo saacado yar kadib markii ay sheegteen inay dileen al rijaani isagana la sii daayay aynu ku horeyno saaxiibayaal daawadayaal marka hore يعني marka hore al-Rijani wuu shahiiday wuuna dhintay dardaaran ayuu shalay soo saaray islaamku uu kula dardaarmayo guud ahaan warbixintaas insha Allah iyo qoraalkii uu soo qoray waa sii day doonaa madaxda Iiraan geesinimadooda iyo يعني madax banaanka iska yaalo anytime la heli karo weeyaan kalsoonida inta la eg maxaa keenay Iiraan saaxiibayaal daawadayaal horta marka hore 7 lakab ay dawladnimadeedu u dhisan tahay 7 lakab ayuu nidaamka Iiraan u dhisan yahay ma aha sidii Syria oo kale ama sidii Soomaaliya u burburtay oo kale ama sidii tusaale ahaan muxuu ahaa Libya u burburtay oo kale يعني wadan inta hogaamiyaasha ugu sareeya mar la dilo sida ku burburaya ma ahan waa 93 milyan markooda waxayna ka taxadareen waxay sameeyeen nidaam jaranjar ah ay sameeyeen oo la kabya ah oo hogaanka ugu sareeya iyo kan dhexe iyo mid kasta hadii la jiro saameyn culus aan geysanayn taasaan idin soo gudbinaa kadibna al rijaani kadibna ninka wasiirka ah oo laga dilay Israa'iil marka nidaamku wuxuu ka bilaabanayaa hogaamiyaha sare waa hogaamiyaha ugu sareeya ee dalka wuxuuna go'aaminayaa siyaasadda guud ee dalka waa taliyaha guud ee ciidamada wuxuu magacaabayaa madaxda muhiimka ah wuxuu magacaabayaa madaxda garsoorka wuxuu magacaabayaa qaar ka mid ah golaha ilaaliyaasha wuxuu magacaabayaa hogaanka ciidamada iyo warbaahinta dawliga intaas ayuu magacaabayaa waana hogaamiyaha ugu sareeya waa booskii ku jiray Ayatollah Ali Khamenei horeyna uu Ayatollah Khomeini ugu jiray haddana uu Mujtaba Ali Khamenei ugu jiro lakabka marka laga yimaado waxa ka hooseeya lakab labaad golaha khubarada golo lagu magacaabo Assembly of Experts baa la dhahaa waa gole ka kooban culimo islaami ah يعني way ka kooban yihiin dadku way doortaan laakiin musharaxiinta
يعني waa la baarayaa musharaxa ugu maaragtay muhiimsan iyo dadka u qalma ee isu soo sharaxaya shaqada ugu weyn waxa weeyaan waa doorashada hogaamiyaha sare iyo sidoo kale kormeeridda shaqadiisa maalinta markii uu odaygu dhintay cali khameyni allah u naxariisto iyo raggii kale la dhintay waxaa hawshaas shaqada ah gacanta ku hayay oo yani golahan khubarada ayaa waxay baarayeen qofka bedeli doona isaga wiilkiisa iyaga ayaa soo doortay mujtaba cali khameyni golihii labaad baa idiin sheegnayaa waa hogaamiyaha sare ama super leaderka iyo sidoo kale muxuu ahaa golaha khubarada golaha ilaaliyaasha ayaa iyaguna jira oo la dhaho yani golaha ilaaliyaasha waxay ka kooban yihiin 12 xubnood ayay ka kooban yihiin waa qodobka saddexaad waa 6 culimo oo hogaamiyaha sare uu magacaabo iyo sidoo kale 6 sharci yaqaan oo baarlamaanku ansixiyo golaha ilaaliyaasha marka iyagu baarlamaanka ilaalinayaan la xisaabtamayaan 6 ka mid ah waa culimo oo waxaa soo magacaabaya mujtaba khameyni ama markii uu noolaa ayatullah cali khameyni ayaa soo magacaabaya 6 kalena waxaa magacaabaya oo ansixinaya 6 kalena waa sharci yaqaan oo waa rag sharciga garanaya 6dan waa culimo 6dan kalena waxa weeyaan waa sharci yaqaan baarlamaanka ansixinaya 12 kaas marka waxay ilaalinayaan baarlamaanka iyo dowladnimada nidaamka ayay ilaalinayaan shaqadoodu waxa weeyaan waa hubinta in sharciyada baarlamaanku ay waafaqsan yihiin islaamka iyo dastuurka iyo sidoo kale go'aaminta cidda u tartami karta doorashooyinka labadaas ayaguna qaabilsan yihiin waa 12 xubnood waa jaranjaradii saddexaad baa marayna waxaan kasoo gudubnay jaranjaradii koowaad jaranjaradii labaad jaranjaradii saddexaad jaranjarada afraad madaxweynaha weeyaan waa madaxda maamulka dawliga ah waa madaxda maamulka dawliga ah head of government weeyaan dadka ayaa doorta 4 sano mar wuxuuna maamulaa howlaha maalinlaha ah ee dawladda waa madaxweynaha waa golayaasha wasiirada yani baa halkaa hoos imaanaya laakiin weli wuxuu hoos imaanaya madaxweynuhu mascuud baa hadda booskaa fadhiya hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalka ayuu hoos imaanaya madaxweynuhu waa jaranjarada afraad waxaan soo sheegnay 3 ka horeysaan soo sheegnay 5 waa baarlamaanka waa golo sharci dejineed baarlamaanku xubnahoodu waxa doorta shacabka soo doorta waxay sameeyaan sharciyo iyo sidoo kale miisaaniyadda dalka ay ansixiyaan laakiin sharci kasta waa in uu ansixiyaa oo uu sii maraa golaha yani korjoogteynta oo hore aan idinku soo sheegnay ama golaha ilaaliyaasha oo saddexaad oo 12 ka koobnaa 6 sharci yaqaanada iyo 6 culimada ah waa inay sharciga baarlamaanadu soo ansixiyeen la sii marsiiyaa golahaas baarlamaankoodu waa ilaa 290 weeyaan 6 garsoorka waxay maamulaan nidaamka maxkamadda madaxda garsoorka waxaa magacaabaya hogaamiyaha sare ayaa magacaabaya nidaamka maxkamadda ayay yani ayaguna maamulaan 7 waa golayaal kale oo muhiim u ah jiritaanka dowladnimada waxaa jira golayaal kale oo saameyn leh golaha maslaxadda golo loo yaqaan ayaa jirta xilliyada khilaafku u dhexeeyo baarlamaanka iyo sidoo kale golaha ilaaliyaasha yani baarlamaanka ayay maslaxayaan waa golaha 7aad wuxuuna sidoo kale la taliyaa ama ay golahan la taliyaan hogaamiyaha ugu sarreeya mujtaba khameyni ayay la talinayaan golaha amniga qaranka waa kana yani waa booska laga dilay cali rijaani allah u naxariistee waxay go'aamiyaan siyaasadda amniga iyo arrimaha dibadda madaxweynaha ayaa hogaamiya laakiin go'aamadu waa inay ansixiyaan yani hogaamiyaha golaha iyo sidoo kale hogaankooda iyo sidoo kale yani waa inay ansixiyaan hogaamiyaha sarena waa inuu la sii ansixiyaa oo uu kala warhayaa marka waa golaha 7aad ayay ka kooban yihiin intaas marka maxaad dhahnay waa hogaamiyaha sare waa golaha khubarada waa muxuu ahaa waa yani golaha ilaaliyaasha weeyaan waa madaxweynaha waa baarlamaanka waa garsoorka waa golaha amniga iyo golayaal kale intaas ayuu ka kooban yahay iiraan marka nidaam waxay isugu jirtaa islaamig ah dabcan oo markaasi iyo nidaam kale oo waxay isugu jirtaa dawli ah oo qaybna dadku ay soo dooranayaan nidaam 7 lakab u dhisan ayay markaasi isugu jirtaa marka waxay ka dhigan tahay
ama 10 dil ama 20 dil ama adigu 1 milyan ama 2 milyan oo qof ama dil kartaa waa may aqoon-yahano saynisyo yani golo kastana hadda tusaale ahaan cali rijaani baa la dilay cali rijaani waxaa ka hooseeya yani intaasoo xubnood baa la shaqaynaya mid unbaa golaha dib hore loogu riixaya shaqadii qaban leeyahay waa inta un kaliya laakiin qofkii caanka ah oo bulshadu ay baratay oo booska sare basishka ku fadhiyay waa sax qofkaas saameyn buu ku yeelanaya laakiin nidaamka dowladnimo ee Iran waa laga taxadiray that's why ayadoo wasiirkii gaashaandhigga iyo taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka iyo hogaamiyihii ugu sarreeyay iyo 10 kale ay dhinteen oo guriga Ayatollah Ali Khamenei ay ku dhinteen ayaa howluhu iska socdeen subaxii gantaalada iyo diyaaradihii subaxii bilowday 28kii maalinta bilowday ayaa maanta oo bishii 17 Maarso maraysa soconaya kow iyo waxa weeyaan labana ma joogto hawsha okay cali rijaani kuma waxa taariikhda iyo nolosha cali rijaani dhalashada iyo asalka magaciisa waxa la dhihi jiray cali ardashir rijaani ilaahay naxariisana ka waraabiyo wuxuu dhashay 3 Juun 1958 goobta dhalashadiisana waxa lagu sheegay Najaf Ciraaq inuu ku dhashay wuxuu ka soo jeeday qoys culimo iyo siyaasiyiin caanka ah Iran abiis wuxuu ahaa Ayatollah Mirza Hashim Amuli oo ahaa wadaad shiica ah oo caan ah markii kacaankii Iran 1979kii dhacay qoyskiisu waxay dib ugu soo laabteen Iran dalkoodii laba waxbarashadiisa waxa lagu sheegay wuxuu bartay falsafada jaamacadda ama filosof ayuu ahaa jaamacadda Tehran wuxuuna helay PhD waxaana lagu yaqaanay inuu markaasi ahaa nin aqoon-yahan oo karti iyo xeel dheer leh bilowgii shaqadiisa siyaasadeed kadib kacaankii Iran markii uu curtay 1979kii wuxuu ku biiray ciidamada ilaalada kacaanka ee markaasi loo yaqaano IRGC wuxuuna noqday siyaasi muhiim ah oo ka tirsan nidaamka dawliga ah shaqooyinkii uu qabtay waxaa ka mid ahaa wasiirka dhaqanka xilligii madaxweyne Rafsanjani sidoo kale wuxuu ahaa madaxa warbaahinta qaranka ee Iran 1994 ilaa 2004 jagooyinka sare oo dawladeed oo cali rijaani wuxuu qabtay jagooyinka aad u sareeya xogayaha golaha amniga qaranka Iran ayuu markaasi ahaa 2005 2007 wadaxaajoodiyada nuclearka Iran iyo wadamada reer galbeedka ayuu si aad ah uga soo shaqeeyay gudoomiyaha baarlamaanka Iran 2008 kamid ahaanshaha la taliyaasha ugu dhow hogaamiyaha sare ee Iran ayuu ahaa waxaana lagu tiriyaa inuu kamid ahaa siyaasiyiinta ugu awoodda badan Iran muddo dheer doorashooyinka madaxweynaha wuxuu isku dayay inuu noqdo madaxweynaha Iran 2012 laakiin waxa ka reebtay yani golaha ilaaliyaasha ayaa ka reebay inuu noqdo golihii aan idin sheegin hadda Guardian Council ayaa ka soo reebay musharaxnimadii dilkiisa maanta ayaa ay sheegteen Yuhuudda iyo sidoo kale Mareykanku ay dileen al-Rajani wuxuu ku dhintay duqeyn dhanka ceerka ah oo ka dhacday Tehran Yuhuudda ayaana sheegtay inay markaasi fuliyeen weerarkaas wuxuuna ahaa mas'uul ka mid ah mas'uuladii geesiyaasha ahaa isla markaana madaxdii ugu sareysay dalka Iran waxaa xusid mudan jimcadii la soo dhaafay muuqaalkana waa idinku soo bilownay sawirkiisa waa arki kartaan jimcadii la soo dhaafay Qudus Day maalinta loo dabaaldego ayuu markaasi ka qayb galay isaga iyo Abbas wasiirka arrimaha dibadda iyo Mas'uud madaxweynaha dalka ay ka qayb galeen waxaa la aaminsan yahay inuu ahaa nimaan isqarinayn oo dhuumanayn waxaa cajiib ah in madaxda Iran ay aaminsan yihiin yani in aan la isqarin oo la dhuuman ay aaminsan yihiin Ayatollah Ali Khamenei ayaa wuxuu yidhi meelo lagu diyaariyo gabaada adgash markaasuu yidhi 90 iyo dhowr milyan oo Iran ma geli karaan meeshaas yani xujo adag bay ahayd waa maya lagu yidhi anugu nin fulaya ma yidhi nafteedana lama lax jecloonayo hogaamiyihii ugu sareeyay Ayatollah Ali Khamenei ayaa yidhi nimankan waxay aaminsan yihiin niman shahaado inay qaadanayaan aaminsan weeyaan oo ku adag diintooda iyo sidii aaminsan yihiin mawaaqiftooda marka ma aha niman geeridu ay cabsi gelinayso sida Yuhuudda iyo Mareykanka ku dhuumanaya dhulka hoostiisa haddaba daawadayaal saaxiibayaal aynu ka imaano inta waxaa la dilay wasiirkii difaaca waxaa la dilay yani Yuhuudda ayaa la dilay Yoav Gallant ayaa la dilay sawirkiisu waa idin muuqdaa waxaa loo badinayaa in uu yahay aargudasho Iran markii ugu horeysay maanta ayay muxuu ahaa Al Jazeera iyo Iran bay xaqiijiyeen inay mas'uulkii ugu horeeyay oo markaasi ay ikhtiyaal ku dishay ama shaqo ay ku dishay inay ka fulisay dilkiisa
gudaha yani Israel waxaana markaasi dabagal dheer aynu ku sameynay uu noqday ninkaas wasiirkii hore ee difaaca nin xag jir ahaa ka qayb qaadanayay 2 sano oo Falastiinta la leynayay ilaa 3 sano ku dhawaadkii la leynayay 2023 kasoo bilow 24 ilaa 5 xasuuqii ku socday aduu raggii ka qayb galay ayuu kamid ahaa sidoo kale wuxuu kamid ahaa xubin ka tirsan xisbiga Likud wuxuuna kamid ahaa madaxda ugu sareysa ee wax laga weydiiyo galalka dagaalka walow xubinnimadii wasiirku hadda ka maqan yahay oo Israel Katz oo hadda uu booska fadhiyo haddana wuxuu ahaa mid ugu muhiimsan ragga maskaxda ah ee qorshayaasha dagaalka wax laga weydiiyo ama malafka dagaalka marka laga hadlayo wax laga weydiiyo Iran waxa ay markaasi xaqiijisay in ay ninkaasi shirqool ku dishay assassination taa waxay ka dhigan tahay markaa haddii awal musaad ay shaqaysanaysay oo ay gudaha Iran ay howlgallo ka waday yani madaxda lagu beegsanayo ama basaasid ah ayadoo ka faa'iideysanaysa xubno calooshada shaqaystayaal ah oo sirdoon ah hadda ayagana dhankooda ayay ka bilaabeen inay markaasi ka fuliyaan khaarijin tan waxay noqonaysaa talaabadii ugu horeysay marka laga yimaado ragga gantaalada ku baaba'ay oo uu kamid yahay wasiirkii amniga ilaa hadda raq ruux aan lahayn ra'iisul wasaarihii laftigiisa oo geeridiisa waxa weeyaan la xaqiijiyay 100% oo muuqaala AI ah ilaa hadda la isla dhex wareegayo laakiin dhibaatada meesha taalo waxay tahay qolana dilka way sheeganaysaa qolada kalena way qarinaysaa يعني إيران وهي حد ما أنت مسؤول كل سلعة شيء يعني وين كنت عسين يعني تعرفت كده حاجة وحالة ليه هي خبرة الحان معناها كل سوني ذو كتير تأيو طالما أنت وتدو مليون يهود وتدو مليون إلى ليه مليون حاجة واحد ماشي جوا أول ما سيعيش يدور مليون حدنا كل سوني ذا مدح ذا أو ميلها بنانك أسكفر السنة وعنا أو حبس كده ترنين يجي سينما ذا حتى أفكار وحالة ليه أما فعلا شعوب عالم كتاجر هي إيران يسلو كلمة عيدنك moralka aysan u fiicnayn walow aysan Iran wax weyn aysan madaxda shakhsiyaadka dhimanaya aysan wax weyn u geysanayn haddana geesinimadan tirabeelka ah iyo ilaalin la'aanta walow qadarka iyo ajisha malakameedku meesha u yaalo waxay dhaawac xogaa iyo niijab ku noqon kartaa dadka shucuubta caalamka oo mas'uulkii ay taageeraanba ay dareemayaan in la bartilmaameedsaday taasoo aan u wanaagsanayn Iran ay tahay inay khidada wax ka barato madaxda ay qariso isla markaana madaxda iyo hogaamiyaasha muhiimka ah ay qariyaan si aysan niyad shacabka iyo sidoo kale dawladda dadka Iran isugu keenin walow dhinaca kale leeyahay dhiigga madaxda geesiyaasha ah oo muujinaya in xil jacayl iyo kursi jacayl aysan ahayn ee qadiyad iyo diin iyo ka go'an tahay dalkooda ugu dhimanayaan ay ku riixi karto inay Iiraaniyiintu kurtigood ay la mid noqdaan madaxdaas nafta horeysa oo qof yani dhimashada ka baqay la waayo Iran ilaa hadda dagaalku ka socdo inta aragteen 17 Maars la maraya 18 maraya dadkii Iran ka maqnaaba gudaha dib ugu laabtay oo Turkiga oo kale borderkiisii ka gudbayeen yani waxyaabo badan fiideo wada ka samayn doona halka dadku marka wadamada wax ka dhacaan ay kala cararaan taas oo laftigeeda lagu micneeyay geesinimada madaxdooda ay arkayaan inay taasna qayb ka qaadanayso in dadka shacabka ayaguna nafta ay la boqoyaan sida waarti fikirkaaga dhanka hoose muuqaalo badan baa soo wadnaa sababa xaqiijinaya geerida ra'iisul wasaaraha Yuhuudda iyo sidoo kale muuqaalo badan oo kale ayaan soo wadnaa muuqaalka sii share garay haddii aad markaas nagu cusub tahay barteena YouTube-ka subscribe soo dheh barteena Facebook-gana follow soo dhawaana mahadsantiin daawadayaal saaxiibayaal